السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya ha noolaato oo ha israacdo. Waxaan idin sidaa war degdega oo aan filayo dhammaantiin inta ka tira leegtiin in yar maahay inaad ku farxi doontaan. Qaramada Midoobay waxay aqbashay go'aankii dawladda Soomaaliya ay dalka kaga cayrisay safiirkii ergeyga gaarka ahaa ee xogayaha Qaramada Midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Haysom yaha magaca ka abaar qabo. Ninkaas Qaramada Midoobay dawladda Soomaaliya waa tii ay cayrisay oo warqad u qortay Qaramada Midoobay oo ay tiri ninkaasi dadka iyo dalka Soomaaliyeed wuxuu ku yahay khatar wuxuu farageliyay madaxbannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qaramada Midoobay waa tii ka fariistay shir degdeg ka yeesheen safiirkeeni sharafta lahaa ee inoo fadhiyay New York waa tuu khudbadda cajiibka ahayd halka ka jeediyay ninkaas Nicholas Haysom la leeyahay waa tuu isaga laftigiisu istifaacay marka wixii ka dambeeyay waxa shir albaabada u xiran yihiin yeeshay 15 xubnood ee uu ka kooban yahay golaha ammaanka 15 xubnood t-shirt gareeya waxay go'aamiyeen in safiir in ergey cusub loo magacaabo Soomaaliya galabta goor dhaweyto hal saac ka hor afayeenka xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres wuxuu ku dhawaaqay in xogayaha guud ee Qaramada Midoobay marka hore uu ka shalaynayo go'aankii ay dawladda Soomaaliya ku eeriday safiirkaasi hase ahaatee uu u soo magacaabi doono Soomaaliya ergey cusub kaas oo sii wadi doona halkaas shaqadii Qaramada Midoobay ee ka waday sida lagu sheegay sidoo afayeenku ku sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay ergey xogayaha Qaramada Midoobay oo akhriyay marka waa guul ummadda Soomaaliyeed soo hoyatay ninkii waa la eriyay Qaramada Midoobay waa aqbashay qof cusub baa laynoo soo magacaabaya taasi waxay muujinaysaa Soomaalinimadii inay shaqaysay waxay soo mar kale dadka Soomaaliyeed niyadoodii baa kor u kacday waxa qabkeeni baa soo noolaaday waxa adduunyadu inoo aqoonsatay oo ay ka turjumaysaa go'aanka Qaramada Midoobay ee ku aqbashay ninkii aan dalka ka erinay ee sida madaxweynaha u dhaqmi jiray waliba kan ugu horeeyay raggii ka horeeyay faragelintan uu sameeyay ka weyn bay dalka ku sameyn jireen laakiin barigii hore dawladii hore kama jawaab celin jirin lamana xisaabtami jirin dalkana kama cayrin jirin marka arintaas waxa weey arin guula muujinaysa qabkeenu inuu soo noolaaday Soomaaliya in cagaheeda ku istaagtay sharaftii ay adduunyada ku dhaxlahayd iyo awoodeedii ay soo ceshatay waxa weey waxaan maqli jiray raganimadu waa in yar lugaha dhulka lagu adkeeyo Soomaaliya waa soo noqotay dadka mucaaradka ah sida wuxuu sheegaya Soomaaliland oo lahayd ninkaas Hargeysa keenayna waxa la bedelay jaamacadda Hargeysa miyuu dhigaya ninka buulku noqday marka arintaas waxay kaleeto waxay u tahay tusaale ninka la midka oo la soo magacaabi doono hadda wixii ka dambeeya Soomaaliya waa ixtiraami doona qarannimadeedu ixtiraami doona wuxuu ixtiraami doona arrimaheedu guduhu ixtiraami doona sababtoo ah mushaar buu ina ku qaataa marka wuxuu og yahay haddii uu khaladaad galo in sida saaxiibkii ninkii ka horeeyay oo xafiiska kala wareegay loo cayriyay isagoo aan 2 bilood joogin isagana in sida loo cayrin doono oo wadada mari doono saas darteed tani waxay keentay inaan Soomaaliya lagu soo degdegi doonin dawladda Soomaaliya waxay qaadatay go'aan sax ah waxay qaadatay waa maanta waxaan oran karnaa Soomaaliyeed awoodeedii bay tijaabisay waana ku guuleysatay go'aankaasi wuxuu Soomaaliya uga dhigan yahay gantaalkii hubkii nuclearka ay ku dhufatay Mareykanku uu Japan ku dhuftay oo Japan isku dhibtay kaas uu ka dhigan yahay beesha caalamku hadda wixii ka dambeeya inay isu keen dhibto arrimaheena ixtiraamto aan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya marka Soomaaliya waa guuleysatay dadka mucaaradka oo meelaha waxyaabaha beenta ka sheekeynaya oo iyaga ay kaga dhigtay inay qarannimada Soomaaliya majaxaabiyaan kuwaan arkay hadda qoraya ergeygii lama eryin anaa soo akhriyay hadda Google gareeya Reuters bay ku jirtaa YouTube-ka waxa ka helaysaan page-ka ama janaalka Qaramada Midoobay ku leedahay afhayeenka xogayaha guud ee Qaramada Midoobay oo war-saxaafadeedka akhriyay ka helaysaan wuxuu yiri anagu haddaan nahay hay'adda Qaramada Midoobay waxaan nahay mid madax bannaan marka diblomaasiyiinteeda loolama dhaqmi karo sidii laba dal ay diblomaasiyiintooda isaga kala isula dhaqmaan ixtiraam gaar ah mudannahay sida darteed buu yiri annagoo Soomaaliya markasta ixtiraameena madax bannaanideeda dadaalada dawladda Soomaaliya ugu jirto go'aanka waa aqbalnay qof cusub baan soo magacaabi doonaa ergey cusub ninkaas wuxuu noqon doonaa de waxa la yiri nin walaalkii loo xiro adna soo qoyso kan cusub oo la keena ninna ka xishoodu noqonaya nin garowsada inuu maxaa ku raad dalka maamulin safiir ka yahay ergey ka yahay marti ka yahay buu noqon doonaa marka Soomaaliya guul baa soo hoyatay nimanka khayr iyo farmaajo leh ee dawladda federaalka ee mas'uuliyiinta kale leh waxa weeye khaasatan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirkooda arrimaha dibadda guulaha ay keeneen waa kuwa ku daysho mudan waa kuwa bogaadin mudan marka arintu ay joogto dawlad Soomaaliyeed iyo qof ama dal ama urur shisheeye
markasta inaga ummadda Soomaaliyeed hadaan nahay waxa waajibina ku ah inaan dhabarka dawladdeena saarnayno ku ah waa inoo doqoniino inaan shisheeyo isu jabino inaan dawladdeena maaragtay duc ka wareeno mar walba waa inaan dhabarka saarno marka go'aanka dawladdu qaadatay ha saxsanaado ama ha khaldanaado dawladdu iyada wax xaragtay iyada u taala haday qaadatay dawladdeena waa inaan ixtiraamno maaha inaan cadow u raacno cida ishayaan inaan u jabino u loodno maaha waa inaan raacno ama khadar ha ahaado anu hadda waxa weey go'aanka khaladkiisa iyo saxiisa hawl ii taala ma baahaba dawladdeedii baa gaartay Soomaha waa taageeray waa ayiday qaramadii midoobeyna waa taa ku ayiday marka dadka wax xubata shiilka ah waxaan leenahay Soomaaliya waa soo noqotay weli inikaan aaminin weli maxaan ku raad inikaan rumayn inay Soomaaliya soo noqotay laakiin waa arki doontaan samboloshu hadda ay Facebook ku qorayay waxaan arkay qaramada midoobey waxay go'aamisay in ergeyga qaramada midoobey uu dib ugu noqdo shaqadiisii oo magaalada Muqdisho ka digo oo halka ku shaqeeyo waxaan leenahay beenta weeye waxa weeye news code ku jirta ninka waa la bedelayaa qaramada midoobey khaasatan golaha ammaanka qaramada midoobey 15 dal ah baa ka fariistay waa la bedelayaa baa la yiri dal kastana wuxuu xaq u leeyahay in madax banaanadiisa la ixtiraamo Soomaaliya iyada hore isu liiday laakiin waa dal adduunyada laga aqoonsan yahay waxay xaq u leeyihiin Mareykanka arkaysaan oo awood leh wuxuu xaq u leeyahay waxay xaq u leeyihiin Ruushka balaaran wuxuu xaq u leeyahay waxaan xaq u leenahay waxa weeye Shiinuhu wuxuu xaq u leeyahay dal madax banaan baan nahay kuma soo degdegi karo lama kala qaybin karo shuumaha daaqiliga lama geli karo cidiina saacideysa waa soo dhaweynayna laakiin taasi kama dhigna inay annaga baahida nooga faa'iideysato isku kaayadirto maxaa ku raada isku kaayadisho taasi kama dhigna roobow looma dacwoon karo dawladda Soomaaliyeed iyo muwaadiniinteeda lama kala dhexgeli karo dawladda Soomaaliyeed ninkaas iyada qabsatay iyada haysata wuxuu marti u yahay waxa weeye hay'adaha federaalka Soomaaliya iyaga waxa weeye la macaamilkooda iyaga garanaya nin cadaana miya roobo ka naxaya oo farmaajo maxaa ku raahday maanta waxa weeye uga naxariis badan waa maya dawladda Soomaaliyeed iyada dadka u dhaaratay iyada matasha iyada maamusha ha lagu ixtiraamaan leenahay dawladda waxa weeye adduunyadu waa la iscambaareeyaa wadanku haduu waxyaabo khaladaad galo waa lagu cambaareeyaa waa lagu dhaliilaa laakiin dhaliishu waa inay wadada saxda loo maro dawladda waa in si diblomaasiyad leh dunidu sida u macaamisha waa in loogu sheego hadii wax ka khaldameen ma aha in warqad canaana loo soo qoro ma aha in sidii madaxweynaha loo xisaabtamo ma aha in sidii xanala igu xalana miyaa oran jiray halkee dalkii yaraa oo Soomaaliya laga dhaxdhisay halka in loogu yeero maaha waa in xafiisyadooda loogu tago waa in waxa weeye la doodo waa in iyagana la dhageysto waa inaan niman mucaarada la maqal waa in warqada yarar oo meelaha laga soo qoray la iska qaadan si fudud la iska soo qaadan Mareykanka xuquuqda aadanaha sheeganaya intee dad buu laay intee dal buu dulmiyo ku duulay intee dal buu baabiye intee dal buu ku duulay Ciraaqmeeda Afghanistan intee dal baaba Suuriya u dambeysay hadda 5,000 askari ka jooga Soomaaliyada dhibaatooyin u geystay waa la socotaan cid kala xisaabtanta iyo cid ku canaanaysa ma maqli kartaan waxa weeye xabsiga Guantanamo Bay xir baa laga kari laayay warqaxootiga darbiga ka dhisayso halka maalin walba Mexico ku cilinayso ka jooji baa laga kari laayay xuquuq Mareykanka hadii qaramada hadasho tiraahdo war dadka Meengaleeda ku soo weydiista xeerarka qaramada midoobay wuxuu qorayaan inaad dhageysato oo hadii istaahilaan Meengaleeda siiso marka inta la dhaho waa xanaaqaya lacagta in ka goosanaya bataagan marka dawladda Soomaaliyeed sax iyo khaladba waa inaan garab istaagno waa inaan dhiiri gelino waa inaan maxaa ku raahday u ficishino Soomaaliya guul baan leenahay ninkaasi wuxuu ahaaba waa tagay soo noqon mayo kuwa islaha waa idin soo noqonaya wax weyn taraya waa tagay baan leenahay kan damo imanayana wuxuu imanaya isagoo la batiqiyay isagoo baqaya isagoo la saaxiibka meeshiisa baa maraysa isagoo mushaharkiisa ilaashanaya isagoo waxa weeye wixii loo soo diray aan dhaafin danaha Soomaaliyeed ku habsaamin saa isagoo abu iman doona waxa weeye Soomaali ku habsaamin kala dilkeeda ka shaqeyneen shaqooyin aan loo dirsanaan bahalkeenin maamuladii rabay inay Soomaali dhabar jabiyaan nimankii Hargeysa joogay oo Somaliland waxa weeye waxaan leenahay hadaladii hore in ka tagay hadalkiina u miisaan yeesha noo kaalay halka noo kaalay ergeyga gaarka ee labada dal u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya wax laba dal la yiraahdo ma jiraan Soomaaliya meesha jirto la aqoonsan yahay sheeka murqaanka beenta propagandada waxa iska dhaaf ergeyga Soomaaliya maxaan ku raadayay buu ka masuul yahay Somaliland Soomaaliya qayb ka tahay xaruntiisu Muqdisho weeye Muqdisho caasimadda Soomaaliya weeye iyada loo aqoonsan yahay hadda dad cadaan u xistaan soo kireysta meel kasta cadaan baaga muddo ka jaamacadaha inay dhig doonaan cadaan hadda u baahataan soo kireysta meelaha mushaharada siinaysan oo ay maxaa ku raadayay dana dhaqaale in ka helayaan way idin imanayaan laakiin Soomaaliya dawladda Soomaaliya dhinac ordaya oo go'aanka soo saartay ergeyga qaramada midoobay warqad u diraya
warqadda inay gaartay in kalaashka iga jira warqadda musabix oo qoray marka Soomaaliya ha israacdo hal sii sheer gareeyo waxa weeye wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ninkii shiina culay am sharx shinu kuroobi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh